hooyo Khayro Sheekh Salaad waa hooyo haysata 5 caruur ah oo ay ku soo korisay agoonnimo isla markaana ay la daaladhacayso dhaqaale la'aan baahsan iyadoo nolol maalmeedkeeda ka dabarta caziin iyo sabaayad ay ku wareejiso kuna iibiso suuqyada suuq boclo iyo suuq liif ee degmada Dharkeeley gobolka Banaadir iyadoo ah qof bukaan socod ah waxayna ii sheegtay in aysan haysan dhaqaalihii ay ku tagi lahayd goobaha caafimaadka ee magaalada Muqdisho si ay xanuunkeeda ay wax uga qabato hase ahaatee xanuunka haya hooyo Khayro Sheekh Salaad waxa uga sii darnaaday kadib markii loo soo sheegay wiilkeeda Cabdullaahi Ibrahim Muuse in oo si qarsoodi ah tahriib dalka uga baxay in markaa magafo oo ku haysto dalka Liibiya isla markaana uu ka dalbaday lacag gaaraysa $12,000 waatan hooyo Khayro Sheekh Salaad oo iga sheekeynaysa iyadoo ilmeynaysa ayna ka muuqato murugo xanuun haya iyo calool xumo markaasi ay ka walwalayso xaaladda nololeed ee wiilkeeda xilli aan ku booqday hoyga ay ka degan tahay degmada Dharkeeley gobolka Banaadir waxa ina dhex martay anigiyo hooyo Khayro Sheekh Salaad sheekadan waxayna ka codsatay dhammaan muslimiinta Soomaaliyeed in ay ka gacan siiyaan sidii labagafahaasi looga sii deyn lahaa wiilkeeda oo ku xiran mid ka mid ah xabsiyada dalkaasi Liibiya magafana gacanta ugu jiro isla markaana si toos ah ula soo hadlay maalnimadii shalay ahayd kuna wargariya haddii aysan 12 maalmood ku bixin lacagtaasi gaaraysa $12,000 in xaaladda wiilkeeda aysan ka walwalin oo aysan dib dambe ula hadli doonin una arki doonin waxayna sidoo kale codsigaasi ay u soo jeedisay mas'uuliyiinta dawladda federaalka Soomaaliya ugu sareysa in ay gacan ka siiyaan shaqada waxbarasho la'aan ma arday waxbarasho la'aan u waayay meelaha kawaanka malaayga meelaha suuqa xamaalanay mar dhismo ka shaqaysanay kadib wuxuu yiri adii deen u galay deyntii baa lagu yeeshay soo guri u joogay marka Ethiopia iska aadi buu dhahay markaan saas Ethiopia ku tagay Ethiopia markuu tagay Kirishbooy ahaa Kirishbooyinimidii haddana kari waay dad qolo oo bagaash ka qaatay hadda $2,000 la tagay dhaheen $2,000 walaalkiisa Ethiopia jiran hadda loo heystaa kadib waxaan maqlay inuu magafa heesto adii maanta afar camal oo heystaa magafa heesto wuxuu yiri $12,000 aan rabaa 12 beri oo muddo ay qabtay 12 berina maanta ka bacda 12 beri hartay hadii wuxuu yiri 12 beri lacag ku soo dhiibtiin doon aamin waxaan ku saaraa hadii ku soo dhiibin qaybta Soomaalidan geena unuga hadal iyo warna kama helaysiin nolol geeri kulay waqtiga ilaa qadar kulay ma helaysiin igu yiri hadda qolad Tigray buu la joogaa Tigray goorma ayaa hadalkiisa ugu dambeysay oo kula soo hadla hooy ahaan hadalkiisa shalay ugu dambeysay oo asaga ninka uu ila soo hadishiyo wiil of Ethiopia yaqaan intaan raadiyay wiilka xataa wuxuu yiri jaad iga bixi dad islaamiyeed baa jaadka iyo baabur raaci ka bixiyay sidiiba marka oo liigu turjumaybo saasan oo la hadlay marka wuxuu yiri $12,000 hadaan dhiibin cunugii oo $12 beri ka dib dhacdana cunugii wuxuu yiri ma arkaysiin qaybta Soomaalida la geenaa meeshana cadaab uga bilaabanaya laakiin hadda wuxuu yiri meeshuu joogaa qoladan Tigray la joogaa buu yiri hatta 5 soo hormariyay yiri 5 soo hormariyay wiil Soomaaliyeed rab inuu ila hadlo wiilkiina uu diiday inuu la hadlo marka inta caloosha adkaysid oo sawirteed maxaa ka codsanaysaa marka muslimiinta ka daawanaysid muslimiinta waxaan ka daawanaa qofkii naf badbaadiyo ajirkeedu leeyahay nafta in la badbaadiyo anigana uma dirsan raalina kama wax nigu ogeen ilmaha iska yaacayaan waxaan rabaa muslimiinta walaalahay waxaan ka codsanayaa inay si degdeg waxay awoodaan ay cunuga igu badbaadiyaan baan rabaa hadii alla yiraahdo marka caafimaad ahaan adiga xaaladaadu waa sidee aniga waan xanuunsanahay lugaa liga hayaa $2,000 lagu qalaal igu yiri ma awoodo dad ay dheen xataa miidiya ka hadal waxaan dhahay xanuunkayga oo isaga samra miidina kama hadlaaya ilaa isaga taan hadda xataa markii aan soo socday jidkan ku kufay inta badan dhalinyarada Soomaaliyeed ee isugu jira gabdho iyo wiilal ayaa waxa ay ku taamaan in ay markaa raadsadaan nolol ka duwan mid ay ku haystaan dalkooda hooyo isla markaana u xaqal taagaan dalalka reer Yurub iyagoo markaa qaab dhibaato saxariir iyo rafaad ay ku mudanayaan ay markaasi u bareeraan
iyagoo naftooda biimeeya tahriibna ay ku gaaraan meelaha qaarkood qaar ka mid ah dhalinyaradaasi ayaa ku geeriyooda saxaaraha u dhaxeeya dalalka Suudaan iyo Liibiya halka qaarkood badda ay la degtay qaarkoodna markaasi iyagoo naf aan ku dirin noolayn aan dhimanna ay badbaadiyeen maraakiibta shisheeye ee markaa gooshaya xeebaha Talyaaniga iyo Liibiya u dhaxeeya halkaasina ay ku badbaadiyeen iyagoo xanuuno iyo dhibaatooyin markaasi ay ka muuqdaan ay dib markaasi nolol ay ugu heleen dalal ka mid ah dalalka Yurub. Xasan Maxamed Cali Xasan Anteena VOS TV Muqdisho.